السلام عليكم كسو دوادا channelkayga Modern Somali Food channelkayga hore cilad ayaa iga ka timitay marka iminka waxaan go'aansaday inaan channel cusub sameeyo asxaabtayda channelkii hore ku jirtay waxaan rajaynayaa channelkayga cusub ku soo biiri doontaan subscribe na aad ii saari doontaan dhamaan ehelkiina iyo asxaabtana insha Allah aad la sii wadaagi doontaan waxaan rajaynayaa channelkayga inaad ka faa'iidaan waxyaabo fara badan haddii cunto karin noqoto haddii cleaning routine noqoto haddii noqoto motivation waxyaabo badan ayaad insha Allah ka faa'iidi doontaan maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago cabitaan protein leh cabitaankaas oo la yiraahdo blueberry smoothie waxa uu aad ugu fiican yahay quraacda haddii aad rabto inaad wax culus cunin cabitaankan haddaad cabto wax kale u baahan maysid sidan ayuu soo baxay ma sha Allah tabaaraka raxmaan ما شاء الله هذا عبيتان كنا سدا قروحda badan wuxuu ka kooban yahay sidan imika soo socota ingredient ka aan isticmaalay waa sida inta aad aragtaan weeyaan imika ayaan idin fasiri doonaa insha Allah inta aan ku daray waxa aan ku daray anigu hal koob oo caano ah caanaha almond milk ama caanaha looska aad ku bedelan kartaa koob badhkii oo manga ah mangaha anigu hadii jeer diyaarka ah ayaan isticmaalaa smooth ka ah sidoo kale milqaacad chai seed ah waxa kale oo ku darayaa huruuda fresh ka ah xubin in leeg ayaan imika ku daray ama far in leeg ayaan ku daray sidoo kale xabad muus ah ama banana qofka sidoo u yaqaano blueberry-ga waxaan ku darayaa koob in leeg koobabka yar kuwa yaryar baan ku qiyaasay kuwa aadka u sii waaweyn maaha intaas ayaan anigu isku wada ridqaya haddii ilaahay raado wax biyo ama ku daraya waxa rabaa inay thick in noqoto ama uu adkaado maadaama uu sameeyo si loogu quraacdo marka cabitaankan markaan isku wada ridqo ayaan isku soo noqon doonaa insha Allah wuxuu noqon doonaa cabitaan fadhiya oo culus oo qurux badan oo indhuhu ay ka boganayaan bayntayna caloosha dhadhamin cabitaankeena waa soo dhameystiray ma sha Allah sida quruxda badan aad arkaysaan ayuu soo baxay cabitaankan quraacda hadii aad isaga cabto cunto kale uma baahanaysid aadna wuxuu anfacayaa dadka diet-ka ku jira ee aan rabin inay cunto badan subaxdii cunaan intaas oo kaliya hadaad cabto cunto kale wad ka kaafanaysaa uma u baahnid inaad cuntid cunto kale ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxa rajeenaya inaad ila soo tijaabisaan comment hoosta igaga taga insha Allah sida uu idinka idin soo baxo inaad ka hesheen inaad wax kale ku darsateen waxaan rajeynayaa ideyadiina inaan mar walba tixgeliyo comment badan ayaad xagga TikTok ama Instagram ka iga tagteen waxaan rajeynayaa inaan mid kasta video ka soo sameeyo insha Allah oo idin tixgeliyo oo soo sameeyo waxyaabaha aad iga dalbateen aniguna sidoo kale waxaan idinka rajeynayaa idinka insha Allah inaad garab qabataan subscribe ii saartaan dadka aad la sii share gareysaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar cuntada quruxda badan ayay inoo soo baxday cuntadeeni Ilaahay ha inoo siyaadiyo inta aan haysan Ilaahay ha siiyo insha Allah intan video kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah bashbash iyo barwaaqo Ilaahay mar labaad ha inagu kulmiyo hana ilaabina fadlan inaad channelkayga like subscribe iyo share tiraahdaan